madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxa uu habeenkii xalay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay wafdi heer sare oo ka socday dalka aynu xiriirka soo jireenka ee walaaltinimo inaga dhaxeeya ee Kenya. wafdigaasi oo ka koobnaa xildhibaano, siyaasiyiin, maalgashadayaal iyo xubno kale oo muhiim ah. ugu horeyn xubnaha wafdigu waxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaarsiiyeen salaan ay uga sideen madaxweynaha dalka Kenya. imaatinka wafdigana waxa uu daba socday waftiyo dhowr ah oo labadii sano ee u dambeeyay ay isdhaafsanayeen labada wadan. ujeedkooduna waxa uu ahaa xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada wadan ka dhaxeeya ee dhinaca siyaasadda, ganacsiga iyo arrimaha geeska. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si kaliya laaba u soo dhaweeyay ugana mahad celiyay wafdiga imaatinka ay Soomaaliland yimaadeen, isla markaana waxa uu ka gudoomay salaantii ay uga sideen madaxweynaha dalka Kenya mudane Uhuru Kenyatta. waana uu ku bogaadiyay hoggaanka dalka Kenya horumarka dhaqaale iyo deganaanshaha siyaasadeed ee dalkaasi muddada ay ku naaloonayeen. waana uu madaxweynuhu xubnaha wafdiga si qoto dheer uga warramay xiriirka taariikhiga ee labada dal ee Soomaaliland iyo Kenya iyo sida ay Soomaaliland diyaarka ugu tahay iskaashiga wax wada qabsiga wadamada gobolka geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan dalka Kenya oo ay Soomaaliland wax badan wadaagaan. sidoo kale waxa uu madaxweynuhu xusay dhaqdhaqaaqyada iyo isbedelada ka socda gobolka oo ay ka tahay buu yiri wadahadalada u dhaxeeya jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo sidii Kenya door firfircoon uga qaadan lahayd maadaama ay ka mid tahay dalalka muhiimka u ah horumarka gobolka kana mid tahay urur goboleedka IGAD. ugu dambeyntiina waxa uu madaxweynuhu salaan iyo bogaadin u diray madaxweynaha dalka Kenya mudane Uhuru Kenyatta iyo shacbiga dalkaasi oo ay Soomaaliland ka dhaxayso xiriir walaaltinimo. kulanka waxa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku helinayay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland iyo wasiir ku-xigeenkiisa Axmed Saki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka, qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.